dhefaysta didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule dhaliyaqa kacotoosa didibkii xargaha goosta dhiidhiyay sidii goosha sidii galowga dhiilooda dhacaadiidku waa daale dhawrtada ka weynaada muruqiina dhefaysta didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe barnaamijka shaqada nooc insha Allah waa ka bogan doontaan iyo waxa uu shirkan ku saabsan yahay iyo ujeedada dadka isugu yeeray intaas oo dhan insha Allah kulankeena maanta kaga bogan doontaan waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad aan idinku wareegay waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin Soomaaliya waa mahadsantihiin salaankiidu waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada isku dhaqaaqday ee magaca la baxday ee falso waan u mahadcelinayaa isdhaqaankeeda isdhaqaameen waxaan u malaynayaa qurbaha waa lagu soo yaacay qolo walbana waddan ayaa ilaahay calaf uga dhigay inay ku noolaato annaga wax calaf ilaahay nooga dhigay inaan jarmalka ku noolaano khaasatan magaalada kaasar qolo kasta oo deegaan degano way isku tala gashay oo sidii ay waddankii ay marti u noqotay ula noolaan lahayd iyo sidii bulshadu dhexgeli lahayd qaabkii diinta ku weeraraysan lahaayeen intaba way isaga tala galeen annaga markaa waxaan ka koobanahay bulshada fara badan waxaana laga rabaa dadkii yani isku xilqaamay inay dowladda iyo dadka qowmiyadda ay ka soo jeeda waxyaabaha ka maqan iyo dowladda inay dhex galaan dadka isku dayay inaan u sacabtano oo aan taageerno oo aan naf iyo maal ku taageerno inta waana looga baahan yahay ta labaad maanta kadib yani waa mahadsantihiin dhalinyarada kala markaan la gadaal markaa tilmaamshada wada waxa uu leeyahay maalmaska aadada wadashaa intaas kadib waxqabadkeedu wax daboolan ama saxo lagu marin karo ma aha annagu wada ku garabtaaganahay haddaanu nahay shacabka joogo inta wax kala tahay inaa waxaa wax kala mujugaan laakiin dadka iska hadaya dhiga u dhigina hor u socda taas waati intaas kadib maanta iyo xaflada loo qabatay laakiin waxaan codsanahay anigoo afka shacabka ku hadlaya in aad loo qabataan qaylo badan lidina laga yaabaa dood wadaag ama su-aalo badan ina weydiino si aan qaladaadkiina idinkaga saara aadan codsanaynaas ورفع على هاي الجملة وعلى علينا تاجرنا تاجرنا وحنا من معلم من هذا الشيء على سوق المال ونقول لك إن شاء الله يبلغ المنتج سماد المعجمين تاجر وربنا هي الموضوع سماوي يتم في الاستثمار تتكشف وتتكلم عن الدنيا معلوم استاذ حاط صوت معقول واحد يدور هنا ان شاء الله يدور في الدوام واحد يقرب من تاجرنا ان شاء الله قاس يوم الله هاي ابو بنت مع ستي يبلغ ان شاء الله وانا اقول لكم ان الداخليه كانت اليوم iyadoo aan tiro xubnaha dhowrka uu leeyahay iyo xeerkiisa sababta anigu information ka hayay shaqsi ahaan aan jeclahay marka dooda wixii walaalkeena su'aalaha la weydiin doono in lagu soo daro qaliil shaqo oo xubnaha aasaasay waxqabadkooda waxqabadka aasaasay iyo xeerka ay xisbigu iyo loo furi karo xisbiga laftigiisa oo dadka ka soo qaybgeli karaan iyo weliba xisbiyada la baqaarin doono oo laga dhigi doono xisbi ama urur afrikanism ah oo Soomaali kaliya ay arkin jooga jaarida afrikaan ay hoos timaado arrinta loo dalad afreeda oo waddanka ku jirta oo qowmiyadda afrikaanka oo ay fikir ahaan ku soo soo karno iyo weliba wax badan oo lagu calaamado doono shaqo yahay
maskaxdooda soo saari doona sida waqtigii waddanka loo baxaa diyaaradaha iyo foundationkiisa badbaadaday oo ay codsan doonto dowladda ay soo sameeyo taalo marka fikro noocaasa oo jeclahay lagu soo diro ayaa codsanaya in sharafka dambe kuma doonaan lagu soo diro waa salaamadii dhammaan bulshada سنة بعد وحرنا وهاي العليو أورك سومالي سكيبو وأنتي أورك بدل بدل أو واحد سومالي وسومالي ما أنت أي أشياء تدوسيها لك وعرجينا إن شاء الله بلا أساس عليه أنا سومالي ده نتكلم إذا حدثنا من سومالي فوشنا تدوسيه maadaama ay qabteen wax runtii soomaalida aysan ku baraarugsaneyn oo rabeen in maaragtay muhiim hadii la qabto laakiin ayagu ay baraarugeen idin ugu horreey arkay dhibaatadaas u istaagay annagana waxaan ugu waajibaa inaan dhammaanteen aan garab istaagno oo aan hil iyo hool garab istaagno soomaalida waxaan fari lahaa in aan fahamno meesha dhibaatada naga haysato iyo dadka mudan ee loo istaagay dhibaatadaas xalliyaan annaguna aan noqdo garab istaaga taas waa soomaalida codsanaya soomaalida u leedahay xoolaha tatawucaadka bulshada waxaan ahaadahayna maaha business waxaan ahaadahayna maaha wax kale marka faa'iidada xoolaha tatawucaadka u leedahay iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada team ومحسنتين كل سومالي لقاء انت كمان المالين نسوقه بين قرب السنين هل كلامك ترسلنا هاي سومالي ذا هل هو النقطان درنيرتا وحبرتا جامعة وينتكا أوصل منسوبية سي ودك الوحدة خواتين والدين وحب ترتيب حقوق دين سوء عدين المهدي جماعة سومالي الإيكو رديت التردد وإيكو وحان الدين إن شاء الله تعالى إن معرفة ذات حدود مشي سوى كل أريمة كار آية لنا خصية سينوع سكون وحي ولاية وحي خيرة يوحي بلشة الصومال الأخوة أي كاس بتجي بين سبعة سكوة كل أنا أريمة كار كل كار مايو سياسة را وحي تنتع إنك نافعي جمهور الصومال بين سكوة نافعي عيال هذا تمرة هذا وأول هذا أيضا كل يوم معنا كيان يحمد أي وجوهية يكون أبو مكتشفينيا كل بريش محسن هذا يعني waxaan halkan u istaagsannahay in aan xoogaaya warbixin ka bixiyo Somalis Info anaha Somalis Info waa urur Soomaaliyeed oo iskugu tagtay dhalinyaro Soomaaliyeed meel walba ka soo jeedo kuma saabsano kumana dhisno mid qabiil ama mid gaar ama mid reer waa mid ku taagan Soomaali Maxamed meesheeda ka timaado maadaama baahiyaad fara badan ay jiraan sidaas darteeda u abaabulna Somalis Info waxaa la abaabulay 2016 waxayna qabataa Somalis Info ee ummadda Soomaaliyeed waliba shacabkeeda u qabataa xuquuqyaha ka maqan ee u baahan tahay waddanka kaga baahan tahay ee u qabataa mar waliba u soo dhacaysaa waxyaalo badanna way qabatay sida aan wada ognahay هذا المراليات مرة كوات مرة كوات وحن سلامة يا مرتشرف مانتا سوء جيبتي سوء شيء سي ديزمبر أول كل اللي يكرهني وحا أساس الدنيا الصومالية في الصومالية وولد في السوري وحا لا أساسين وحكمت أحكام وحكمت عاطف أنا ما integration محاولة وأساسية وحكى له الله أساسي Somalis Info وعي جليو بلشة الصومالية أو وعي جليو كمان نرشح السيستم كجرم كتير وحكى له الله أساسي Somalis Info إن وكبر قاطع إن صاد حقوقها Somalida كما حقوقها Somalida كما كان هذين النقطة إن أنا وصلت على كم قيمين هذين النقطة أنا مشارع إن كم قيمين ويران وعيلين إن حقوق إليهن Somalis Info هذا إن
sameeyo matalaad siyaasadeed inuu mujtamaca soomaalida ku dhiirigeliyo inay xuquuq siyaasadeed leeyihiin Somali Civil arrimahaas oo dhan ayaa loo aasaasay haddaba muxuu ka qabtay Somali Civil qodobada waan ku imaan doonaa haddaan ku hormaro arrinta integration Somali Civil wuxuu isku dayaa in uu dhiirigeliyo qof kasta oo Soomaali ah in uu waddankan integrate ku noqdo wuxuu siiyaa talooyin wuxuu siiyaa in uu u sharaxo sida systemkan waddankan looga nool yahay isla markaas wuxuu ka qayb qaataa activitiyada integration ee magaalada Kassel iyo areada ka dhaco hadday feeste kasta noqoto hadday kulan noqoto hadday warbixin noqoto meel laga dhegeysanayo waxaa kaloo ilaa qodob muhiim ah oo Somali Civil loo aasaasay oo ah in sumcadda Soomaalida jarmalka ku nool uu kor u qaado iyadoo uu adeegsanayo laba arrimood arrin ah in qof kasta oo Soomaali ah oo wax wanaag ah sameeyo in uu kor u soo qaado oo dad uu muujiyo iyadoo la adeegsanayo media maanta waxaa ogtihiin media waa wax ugu sahlan oo lagu muuqdo Somali Civil wuxuu sameeyey intuu ku jiray social media channel Somali Deutschland yiraahdo oo ay ku jiraan inta badan dadka Soomaalida jarmalka ku nool oo maanta dhihi kara waa lagu fahmi karaa oo ay ku jiraan inta badan 20,000 qof oo Soomaali ah oo jarmalka ku nool ayadoo Soomaalida jarmalka ku nool ay yihiin 45,000 kala barnaamij taas oo qofka Soomaaliga oo wanaag ah hadduu jaamacad bilaabay jaamacad dhameeyay hadduu shahaado qaatay hadduu orodka ka qaatay haddii uu galo soo galay haddii uu shaqo fiican qabtay hadduu ku guulaystay in lagu soo bandhigo taas macnaheedu waxaa waaye sumcadda Soomaalida in kor loo qaado waxaa kaloo Somali Civil qorshaheeda ka mid ah horeyna u qabatay hadda lagu qorshaysan inay qabato in sumcadda Soomaalida magaalada Kassel iyo areadeeda inay kor u qaado sida in dadka aan la noolnahay la baro dhaqankeena sidaa u noolnahay sidaa u fikirayno bini aadamka aana oo aan Soomaalida keliya laga baranin meelaha wax laga caawiyo sida Caritas diabetes job centerka kaliya aan laga baranin qofka insaanka Soomaaliga ah la barto siduu u sameysanayaa siduu u fikiraya maxaa dhaqankiisa muxuu ku fiican yahay muxuu soo fiicnay alxamdulillah waxaan isleeyahay kuwii ugu horreeyay oo noociisa labadii noo qabsoomay annagoo marti qaaday shafar maalkunka iyo ururada bulshada iyo xildhibaano oo Shamso waa qof aad u firfircoon taageer xoog badan dhan walba aan la garab istaagnayn Somali Civil wax walba oo ay qabanayaan marka waxay naga bateysay kulankan maanta in ugu yaraan aqoonsano dadaalkii iyo taageeradii Somali Civil ay siisay marka waxaan ku garanay in aan shahaado sharaftan siino Shamsa Ali Saciid marka maadaama qof aad u firfircoon oo Somali Civil garab istaagtay dhan walba waxaan garanay in aan qadarino dadaalkeedii marka Shamsa ku soo dhawow ما شاء الله ضد وفيعا مجالات حرجينا يا هرمك كذا أد وهرمتين النقطة دلنيرة هي قضيالكو المها هذا السوق عاية شعب الصومالي الدمان هدي صومالي دان لو وضعهم أد وحاول جينا يا ساني سكسي في عن إلى نقطة مجالات كاسل هرمودة إلى نقطة قبل كاسل أما ميلها أو ودو جرمالك إلى هرمودة نقطة marka runtii aad aad ugu mahadsantihiin wiilasha walaaladay sidaas ka sii fiican iyo afalgadash insha Allah u yeerayaa nin sidoo kale kamid ah dadka Soomaalida oo ka aasaasay haddana dadaal badan mar walba ku jiro sida Soomaalida loogu qaban lahaa waxaan u yeerayaa saaxiibka Jimcaale
iskale maanta halkaan waan imanaa shahaado sharaf lay guddoonsiiyo balse waa la ii gartay alxamdulilaahi maadaas waxaa iskale ururka Soomaali Siifaw aad baan ugu mahadcelinayaa qiimaynta iyo qadarinta ay muujiyeen waxaan rajaynayaa inta ka badan ilaahay qiimeeyo qadariyo halkaan asxaabta Soomaalida soo timid rayidka dowladda dhammaan waan salaamayaa sidoo kaleeto inaan halkaan soo imaadno maantay waa aad baan ugu faraxsanahay anagoo ku hadlaynaa arrimaheena iyo danaheena waa kulan wanaagsan waxaan rajaynayaa kulankan iyo kulamo badan oo lamid inaan ku kulmi doono mar kaleeto waxaan leeyahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhalinyaka kacotoosa midibkii xargaha goosta dhidhiyay sidii